gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay tartanka quruxda habeenka muslimiinta ee Mareykanka Zahra Abuukar oo dal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay tartanka Mrs Muslima USA 2020 tartankan oo loo qabto sanadkiiba hal mar dhammaan hablaha muslimka ee ku nool konton gobol ee Mareykanka ayaa lagu tartansiyaa dhanka quruxda marka aad maqasho cabaayad waxa ugu horeysa ee kugu soo dhacayo waa shuko madow waan jeclahay madowga waa kalar dooqayga ah ayay tiri Zahra oo hadalkeeda sii wada ayaa tiri kadib guushayda balse marka ay cabaayad noqoto waan jeclahay kalarada muuqda gabadhan oo 23 sano jir ah ayaa ku noolay Turkiga muddo 7 sano ah ka hor inta aysan u wareegin Mareykanka sanadkii 2014 tartankan oo markii afaraad la qabanayo ayaa sanadkan ku tartamay 15 hablood oo da'dooda u dhaxaysay 15 ilaa 30 sano